wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa saaka hortagay golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana uga xog waramay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland halka ay marayso. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa uu mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland u sheegay safaradii dhawaan ay ku tageen dibadda iyo shirarkii ay ka qayb galeenba in ay rajo fiican Soomaaliland ka gaadhay isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay xiriirka Turkiga, Ingiriiska iyo urur goboleedka IGAD kuwaasi oo sheegay Soomaaliland inay siiyeen fursado ay ra'yiga ku gudbisan karto. wasiir Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa kale oo uu ka waramay khilaafka qaramada midoobay iyo Soomaaliland ka dhaxeeya ee la xiriira duulimaadiyadooda iyo xafiiska UNISOM ee ay Soomaaliland dalkeeda ka mamnuucday isagoo sheegay labada arrimoodba Soomaaliland in aanay wax dan ahi ugu jirin isla markaana xukuumad ahaan wixii aanay danta qaranka u arkayn ay iska hortaageen ilaa haddana wada hadal ay uga socdaan labada dhinac. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa hadaladiisa kamid ahaa khudbada kadib waxa wasiirka su'aalo ka weydiiyay mudanayaasha iyagoo weydiiyay shirkii Kenya ee uu ka qayb galay xasarada wabiga Nile-ka iyo mowqifka ay xukuumadda Soomaaliland ka taagan tahay dhawaaqi ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. waxaana wasiirku sheegay xukuumad ahaan ay jecel yihiin xaalad nabadeed oo waarta in laga gaaro isagoo sheegay in dalalka caalamka iyo cidda ay khusaysaaba in ay ku dhiirigelinayaan sidii looga hortagi lahaa dagaalka qarxa mantiqada gaar ahaan wadamada Itoobiya iyo Masaarida. ugu dambeyntii golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta arintani ay saameyn weyn ku yeelatay waxaana ka muuqday in golahu uu u kala safan yahay muxaafidka ka soo jeeda xisbi xaakimka kulmiye oo tiro badan iyo mucaarid kooban oo ka soo jeeda xisbiga